ugu horeyn waxaan u hambaliyeynayaa shacbiga Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba munaasabada Ciidul Adha waxaana leeyahay ciid wanaagsan allaha nagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo bashbash iyo nabadqab hambaliyo dhammaan ummadaha muslimiinta ee caalamka munaasabada ciida awgood hambaliyo malaayiinta islaamka ee maanta taagan oo gudanaysa waajibka xajka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan uga baryayaa Ilaahay inuu ka aqbalo dhammaan ummadaha muslimiinta oo xajka u taagan anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan ciida ee barakaysan waxaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba ugu baaqayaa inay iscafiyaan gacmaha isqabsadaan u soo jeestaan kuna fakaraan siday dalkooda iyo dadkooda wax u taaran lahaayeen waqtigan adag ee dhibaatada badan oo ay haysato gaar ahaan waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa inaan dhambaal gaar u diro dhalinyarada Soomaaliyeed ee la khalday kuna mashquulsan waxaan dalkooda dadkooda iyo diintooda iyo mustaqbalkooda toona danta u ahayn ee lagu mashquuliyay hawlaha argagixisada ee khaldan ee al-shabaab waxaan ugu baaqayaa halkaas mustaqbal nolol iyo taariikh midna ma taalo soo join gareeya ku soo biira dadkiina iyo deegaanka nabadda ah ee maantayto ummadnimada Soomaaliyeed laga yegleelayo waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed uguna hambaliyeynayaa sanadkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa sanad mustaqbalka Soomaaliya uu sidii hore inuu ka duwanaan karo lagu cadeeyay waxaa abuurmay nabad marka loo eego tii hore waxaa muuqata dawladnimo waxaa jirta rajo shaqo abuurid dhaqaale kicid iyo dawladnimo qaabkeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa rajadaas dhisantay oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay horseeday in la garab istaago ciid wanaagsan waa mahadsantihiin allaha noo barakeeyo intaan gaaray sharafteena iyo karaamadeenna daryeel